بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي أن كوبا لنسنين وتضوذي في نمو 3 دقيقة يا دمان وأنا صوق علي إن شاء الله تعالى أرمها نيروبي وحا كسعودايين وفالنقين دونا وحي أقدم بي لكن وحي يرسي عادية هاي بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan gelaynaa barnaamijkii aan ku falanqeynaynay waxa Nairobi ka socda wada hadallada Nairobi ka socda wixii run ah wixii been ah iyo falanqeyntii marka ugu horeysa waxaan jecelahay inaan idin sheego sababta dad badan baa igu yiraahaa oo nalaf kamid ma tihid design ma tihid maxaad uga hadlaysaa wada hadallada ama aad ugu mashquulaysaa waxaan jeclaan lahaa inaan idiin sheego dadka dhulka ka soo jeeda ma ay laha saxaafad xor ah oo si xor ah wararkooda u soo tabiso laba saxaafad bay leeyihiin midda cabdiilay oo biyo durduraya iyo barwaaqo laga sheegay 24 saac iyo dad lacag iyo raashimo la siinayo laakiin macaluul jirkooda aad ka dheehanaysid iyo warbaahin kale oo jabhadu ay leedahay oo guule istaba jooga iyo kumanaan kun oo askar oo Tigray oo la dilay iyo maartay Ethiopia oo kala tagaysa laga sheego marka ma ay jirto media mana lihiin dhaxdhaxaada oo waxa jira ayadoona extreme left or right midna aan ahayn oo u dhaxaysa dadka oo ka hadasha marka wada hadallada hadda socda iyo wax kasto deegaanka ka dhaca dantu waxay qasbaysaa dad aan oo kale isu xilqaamay oo maartay deegaankii iyo dadkiiba la jecel ka hayso iyo dibkoodii aan urur ama kooxna ka tirsanayn inay si dhadhaxaad u soo gudbiyaan intii tabartay waan isku dayaa inaan xaqiiqada ama waxa dhabta aan marwalba soo gudbiyo laakiin bini aadan baan ahay waan khaldami karaa waan khaldamay kulli ibn aadan khataa'un markii khaladkii la ii sheegan inaan qaataan jecelahay taas waa intaa midda kale ah maxaa ka galay deegaanka iyo dhulka ama jabhada oo nalaf waxaan qabaa dhibka ama dagaalka meesha ka socday saameyn bi igu yeeshay aniga iyo ehelkayga tusaale ahaan waxa ku dhintay 1997 kii Allah u naxariisto asagoo jabhadaha meesha ka dagaalamaya mid kamid ah walaalkay oo iga weynaa daad iga weyneed ah oo Umar Ali Shaal la yiraaho waliba dhaawac intii lagu qabtay la dhaawac tiray sanadkii hadda tagay December bilowgeedii ayeedii baa loo dilay freedom of speech keegi gurigeygii ayaa ilaa hadda la haystaa oo la wareegay oo dhistay marka saameyn ayaa aniga igu leedahay dhibka meesha ka taagan ka shakhsi ahaan ka Cabdirashiid ahaan ka dadkaygii iyo ehelkaygii kan la tiro ma laha waxaa kaloo ku dhintay asoo jabhada oo nalaf u dagaalamaya wiilan adeer u ahay marka waa wax aniga i taabtay waxaa laga yaabaa ragga waftiga oo nalaf hadda hogaaminaya sida maade oo kale walaalkii iyo wiil u dhalitoon inuu ku dhimanin
ama dhib aysa ka soo gaarin laakiin taas muhiimaddu ma aha anigu igama xigo maaday ka hadalka qadiyadda intaa waxaan jeclahay inaan u sheego kuwa yiraaha maxaad uga hadlaysaa ama maxaad mataqaanaa usoo hadal qaadaysaa waa araar midda kalena waa yaro kaftanoo ninkii cabdi ahaa oon caydhsanayay ayaa iga soo galay Nairobi iyo Onelaf sidaa darteed waa inaan Nairobi ka daba tagaa intaa waa kula kaftamaya oo meeshu ninka marba aado waa inaan ka daba tagaa oon ka daba oon aadaa intaas waa kaftankay intaa markii laga gudbo waxa xaqiiqada ay jira waxaa jira qoraal aan soo qoray 26 November waxaan u maleynayaa waa 2 bilood iyo waxoogo 2 bilood iyo bad exactly qoraalka waxaan ku sheegay in is arag u dib ka dhacay ay isku arkeen Cabdi Maxamuud Cumar General Gabre iyo Gabradille iyo dhinaca Onelaf ay ka socdeen diirane Diirane Yaasiin iyo Xasan Macallin iyo Cabdiraxmaan Maadey dad badan ayaa jira oo beeniyay maalinka ayada ku dhaartay aflagaada ii geystay 26 November baad aflagaada ii geystay waxaas ma jiraan waa been waxba kama jiraan yiri muddo kadib way ogaadeen inay run tahay waqtigii loogu talagalay in la ogeysiiyo waa la ogeysiiyay wax raali gelmaysa ka bixinin waxa kale oo soo ogaaday qodobada lagu heshiinayo oo u dhignaa in maartay awood qaybsi lala galo Cabdi labada sano soo socoto oo maartay kursiga sii hayo arrimo noocaasa taas laftigeeda dad baa igu beeniyay balse xaqiiqadii u dhowdahay waxaan jecelahay marka ugu horeysa inaan idinka faalloodo wada hadalka si ay ku bilowdeen oo hore idinku sheegin iyo goorta ay bilowdeen waxaa jirtay 2 sano ka hor ayaa Sheekh Ibrahim uu isxilqaamay Sheekh Ibrahim ka al-Ittixaadka madaxda jabhadda ayuu la xiriiray marka ayada soo qadar jooga khaas ahaan wuxuu la xiriiray afayeenka jabhadda Maxamuud Nuur la yiraahdo wuxuu ku yiri Tigreegi Ethiopia la heshiisaan baan rabaa oo wada hadal gashaan anaan idin dhadhaxaadiyo waqtiga ayada jabhaddu way ka diiday ma aysan u arkayn maslaxiyo xal inuu yahay wayna ka diiday waxaa laakiin jiray wada hadal hoose oo ninba maanta igu qabsaday hoos inaan niri 2 jeer ayaa lagu kala kacay Nairobi oo wada hadal oo Onelaf Ethiopia ay soo imaadeen wada hadalkii 2012 maqaamkiisa aad buu u sareeyay wasiirre u soo direen kii dambe hal general oo ninkii herar xukumayay ah iyo hal nin oo Soomaaliya oo Mawlid Haayir la yiraaho markaana kililka ka socday ayaa soo dhax fareystay Onelaf way ka xanaaday wada hadalkiina way burburisay laakiin waxaa jiray dabqaad ama wada hadal hoose sidoo maanta ba soo qoray Bunow qorane uu yir 6 soo dhaafay baan dhadhaxaadin wadnay 6 sano ee la soo dhaafay ee dhadhaxaadinta uu waday dadku badankii ma aysan ogeyn Yuusuf Xaaji baa kamid ahaa Yuusuf Xasan oo ku soo biiray Maxamed Cabdi Afay ayuu maanta wada hadalkaas gooni buu u socday kan hadda bilowdayna waa mid kale oo initiative-kiisa Sheekh Ibrahim iyo Cabdiile ay leeyihiin labadii baa la iswaafajiyay is aragii Dubai kadib saad ogeedeen Cabdiraxmaan Maadey ayaa Nairobi tagay qoladii reer Kenya ku wargeliyay hadda inay diyaar u yihiin Cabdina ay sarkeen marka wada hadalkii process-kii socday ee Buno qorane iyo kan hadda Sheekh Ibrahim ee Dubai waa laba kala duwan saa in loo fahmo waan jecelahay ujeedada aan ka leeyahay ma aha inaan ka soo horjeedo waxaan jecelahay inaan idinku celiyo ma aha inaan wada hadal ka soo horjeedo ama nabadda in la qaato laakiin waxaan jecelahay shacabka inaan gaas dhagoolo laga soo qaadin waxa jira ee dhabta ah lala socodsiiyo si uu wacyigooda kor u noqdo haddii dadkii la caburiyo oo Cabdiileena uu yiraaho ma hadli kartaan oo hadda hadashaan ama ehelkiinaan xiri ama waan idin caayi dibadii ama qoliyii kale dagaalamayna ay yiraahaan haddaad hadashaan kaadir carbisan baan kugu soo diraynaa oo caraatan iyo cay kala daalaya waa musiibo intaada laag marka dadku waa inay ka hadlaan waxa jira oo wacyigooda aan hoos loo dhigin aan gaas dhogoro laga soo qaadan waxba aan fahmi karin of course waan taageersanahay waana taageersanaa nabad in la qaato qorigii inuu saxal ahay weligii baan u arkay marka aan falanqeynayo ama aan ka hadlayo ha u qaadanina
inaan dagaal rabo ama aan diidanahay jabhaddu inay nabad qaadato keliya jabhaddu runta ha sheegtaan leeyahay qolada kalena runta ha u sheegaan shacabka waxa jira mar walba shacabka ha loo soo bandhigo ha lala socodsiiyo aan daaha gadaashiisa waxba lagu maamulanin hadhow toolana sidii rabaan laga yeelin waxa aan isku hayna aniga dad badan waxay tahay war dadkan meel bay noogu xirxiran yihiin saan rabnaa wax ugu sheegnaa ee ha barin ama ha u sheegin waxa aanu hoos u leenahay anna waxaan leeyahay waxa aad hoos u leedihiin iyo waxa aad kor u leedihiin iyo wixii aad shalay lahaydeen iyo waxa aad maanta leedihiin consistent waa inuu noqdaa waa inuu isyeeshaa uu isleeyahay oo mar walba si laydinkula xisaabtamo su-aalo adagna laydinka weydiiyo mar haddii aynaan heerkaa gaadhin waa dhibaato inteeda la-eg maalinba dagaal iyo meel aynaan u soconin baa laynagu jahay cabdi shalay wuxuuna lahaa oromaa cadow inagu ah oo ina soo weeraraysa soomaaliya dagaal aan qaadno maanta wuxuu leeyahay oromo waa walaaladeen waan heshiinay maanta wuxuu inaga dhaadhicinayaa qabiil soomaaliyeed oo absamo aba cadow inagu ah jidwa ee ogaadeen oo meesha ka kaxa beritoole hoos buu uga daadegi doonaa marka dadka in saa loo jahawareeriyo waa anigu waan kasoo horjeedaa inay dad sidii ari meel ku xariisan ay ugu xariisnaadaanna waan kasoo horjeedaa waa in warbixinta la siiyo iyo waxa jira loona ogolaado inay fikiraan iyagu inay fikiraan oo fikirkooda markaa meesha ay rabaan iyo waxa ay dan u arkaan in maaragtay ay ku raacaan doorasho ma jirto waan ogahay dhulkeenna oo madaxda jabhadda hadda joogta ciidamo soo dooranin cabdiile ciidamo dooranin kuwa kale ciidamo dooranin oo dadka intii choice la weydiiyey hebel baa la dooranayaa lama dhihin aniguna political competitive ama qof tartan kula jira jabhadda iyo cabdiile midna ma yihin waxay isku dayayaan personal attack iyo fikir khalada dadka inay ka dhaadhiciyaan oo aniga ii sawiraan qof tartan kula jira jabhadda ama cabdiile midna tartan kula ma jiro labada qolo midna tartan kula ma jiro laakiin waxa dhacay waxa jira halka dhibaato ay taala iyo waxa ay leeyihiin baan accountability in la xisaabtamo la weydiiyo ilaa saameyn bay nagu wada leedahay wuxuuna shirkado ama ururo shaqaale oo gooni loo leeyahay ma aha waa wax dadweyne ama dalweyne ka dhaxeeya ilaahow meel laba qof taageersanaato hadduu urur istaago uu yiraahdo dalkaasaan wax ka qabanaya ama dhisaya dadka shacabka ah ama ha taageersanaadaan ama aysan taageersanaanin waxay xaq ugu leeyihiin inay su-aalo adag weydiiyaan inay falanqeeyaan inay dhaleeceeyaan haddii laakiin urur danwadaag uu yahay sida ururada shaqaalaha kuwa xuquuqda minority-ga u dooda kuwa human rights-ka arrimahooda ayaga u madax bannaan inkasta oo haddii khalad ay bulshada ka galaan la sheegayo laakiin sideedaba ururka siyaasadda inta taageersan iyo intaan taageersaneenba way u bannaan tahay inay falanqeeyaan oo ay ka hadlaan intaa yar waxaan ugu dheeraaday raallina ka ahaada inaan dad badan aan hal mar isku dayo inaan maaragtay aan u jawaabo arrinta cabdirashiidow taana waan jeclay inaan ka hadlo cabdirashiidow shalay baad cabdiile taageersanayd ama aad u tagtay maxaad u diidan tahay cabdiile hadda ama aad uga soo horjeedaa waa su-aal in badan la i weydiiyo anuu shalay toole cabdiile markuu meesha imaanayay nabad baan taageersanaa iyo qorigii inuusan xal ahayn cabdiile dhexdu ka soo galay nidaamkii aan taageersanaa weliba wuxuu muujiyey maalmihii hore inuu nin nabadeed yahay al-itixaadkii uu nabad la qaatay kooxdii oo nalafa salaaxudiin macow war hadda sidaad leedihiin jaanis ha la siiyo ayaan lahaa cabdi lama shaqaynin wakiil uma noqonin guddoomiye jaalad uma noqonin laakiin waxaan lahaa war nabadan uu ninkan wada jaanis ha la siiyo waan bartay cabdi shakhsiyadiisa wuxuu yahay iyo meesha uu dadka ku wado markaad qofka baratidna waxaa fiican inaad go-aan ka qaadatid ma aana aqoonin wadanka laftigiisa aad maana u aqoonin wixii markaa ka horreeyay ma aana tegin tegitaanka laftigiisa wax badan buu igu soo kordhiyey iyo isbeddel badan marka shalay waa taageersanayd maanta maxaad uga soo horjeesatay waxay tahay siyaasiyiinta caalamka iyo dadka kaleba waa la taageersanaa mabda aygii kama noqonin inuusan qori xal ahayn marnaba kama noqonin laakiin shakhsiyadda cabdi inuu qof dilaa uu yahay qof aan wax maamuli karin oo kheyru mas-uula inuu yahay waan arkay waana ku soo qancay kamana noqonayo laakiin mabda'ii ahaa inaan nabad oon qori waxba uusan taraynin mabda'a kama noqonin marka ninka kusoo biira mabda'a oo hadda yaqiinsada qorigu inuusan xal ahayn actually asagaa mabdigiisii iyo fikirkiisii bedelay ee anu marna maana bedelin ee shakhsi meesha yimid oo dadkii silciyey ayaan kasoo horjeedsaday midda maxaa calanka Ethiopia isugu sawirtay weligii ma dhihin la iskuma sawiri karo
وحمان مدين دنبنا كمدين لكن صور لا إسكو علن لا إسكو صوره أو مرأة وحا أنيجا إيجالا شرف دعبضا أما إيجالا حق جربضا نينك الدلاجة عبديلي ناس كو قرب صورتين تانا وافكر كيجا عبديلي وشخصي دنبي جلي أو الدلاجة نينك مركا إسكو قرب صوري أيا أنيجا إيجالا شرف حن نينك علن أما مرأة وصوت الشيء إسكو قرب صوري واحد دوني بها هاتو تاسونا وافكر كلا لكن وحانا أورانين haddaan dhihi lahaa war calanka Itoobiya la isku sawiro waa dambi ama waa khalad maanta waad igu qabsan lahayd waad isku sawirtay laakiin waxaana weligeeba oranin haddaad igu qabsatay waa nasiib darro laakiin Cabdiilay ninkii yiri waa dadka aanu xoreynayno ayuu ka mid yahay oo qayb ka yahay ayaa maanta isku sawiray ninkii lahaa lama kulmayno cid ma matalo kaas ayaa u baahan in lagu ceebeeyo oo tirisanas waliba ah asagoo waliba mas'uuliyad u haya aanu weligee mas'uul uma noqon dadka dagaal ma gelinin ma abaabulin wakiil kama noqonin laakiin ninka gacantiisa ama sababtiisa 30,000 oo wiil ay u dhinteen waxa ninkaas u baahan in la xisaabtamo qof shacaba oo weligii xil qabanin la xisaabtankiisa waa uu iska personal attack iyo kaadirka carbisan ee loogu talagalay dadka inay aamusiyaan taana saana kuma aamusaya anugu iyo inta ila fikirka ah inaad ku aamustaan ama aad ka cabsataan khalad baan u arkaa marka la idin dhaleeceeyo ama la idin caayo dadka inta wax garanaysa waa inay wacyi geliso ayna xaqiiqadan u sheegto aan ka gudbo waan idinku dheereeyay araartii waa wada hadalka Sheekh Ibrahim qadar ayuu la xiriiray maxamed nin wakiilka oo nafto qadar jooga wada hadalka 2 sano ka hor ayuu Sheekh Ibrahim dhadhaxaynta keenay jabhadu way ka diiday markay ka diiday Sheekh Ibrahim uu iska gaabsaday hawlihiisu iska watay hadda dagaaladii Oromada iyo qallaasaha markuu Itoobiya ka dhacayay ayay jabhadu la xiriiday Sheekh Ibrahim jabhada ayaa la xiriiday Sheekh Ibrahim iyo Cabdiilay lama soo xiriirin waxa fiican in dadka runta loo sheego iyo shacabka of course waxay oo la xiriireen Itoobiya kala tagaysa ninkan aynu gooni u aragno aynu dhahno Itoobiya way kala tagaysaa aan midowno sidaas ayay hadalka iigu dhigeen marka ay ii sheegeen ay ku dalbadeen la kulanka Cabdiilay iyo wada hadalka markay dalbadeen ayay ku Sheekh Ibrahim sii maraya balse waxaan ogahay taageerayaashooda iyo shacabka inaysan saa public ugu sheegin that's why aan maanta u iri wixii aan ogaayo dhan baan sheegaya kulankaas Cabdiilay oo culays badan uu haystay wuu aqbalay la kulanka wuu aqbalay wuxuu tagay Dubai Sheekh Ibrahim ayaana ka dhaadhiciyay oo u dhaxeeyay wuxuu sii ka haystay 2 generaal oo kamida kuwii asaga uu lacagta siinay ee taageersanaa waa generaal Gabrihi Soomaaliya iyo Gabradille oo Ethiopian Military Intelligence ama sirdoonka ciidamada haysta ayuu sii ka haystay hotel Dubai aa lagu kulmay wax badan ayaa la isla meel dhigay eraya kulkulu waa la isdhaafsaday laakiin wax badan ayaa la isla fahmay oo la isla meel dhigay kadib waxa lagu heshiiyay qoladii Kenya ee dabqaadka waday muddada dheer ee siyaasiyiinta beesha ogaadeen Yusuf Haji iyo Buno Korane iyo Maxamed Cabdi Afey in lagu la noqdo oo wada hadalkii Kenya laga furo saraakiisha Tigreega iyo Cabdi waxay rabeen Djibouti in lagu qabtay rabeen laakiin jabhada dadkii ka socday waxay dalbadeen in lagu qabto Kenya oo halkii wada hadaladii hore ay ka socdeen halka qolada la isula tago Kenya waxa tagay Cabdiraxmaan Maadey wuxuu dawladda Kenya ay u tagay ama raggii dhadhaxaadinaya ogaadeenka ahaa ee dawladda Kenya ka tirsanaa waxay ku yiraahdeen dawladda Kenya la isula tagay dawladda Kenya waxay ku tiri warqad official ah oo in wada hadalkii aanu dib u bilowna ah wasaaradda arrimaha dibadda ama dawladda federaalka Itoobiya noo soo dirto warqadii ayada ahayd waqti bay qaadatay in la helo Yusuf Haji baa sabab tagay Yusuf Xasan baa tagay waxoogow maadaama dawladda Itoobiya uu qallaasa dhaxdeeda uu ka taagnaa way ku adkaatay in laga helo wasaaradda arrimaha dibadda ama xafiiska ra'iisul wasaaraha warqadii waxa fiican wax walba sidoo yahay in laga sheego على إتحال دور ويك يمدة أي قاعدتي ولا جسوا قاعدي ورقدي وحد على شركة جودة فلنت سويدن
jabhadda ONLF ay ku yeelatay waxaa iyaduna xusid mudan waqtiga shirkaas uu socday inuu yimid magaalada Stockholm cidda uu la kulmay ma cadeyn karo ama qofka uu la hadlay laakiin Bashiir Waal oo Bashiir Cawarna loo yaqaano cabdi ay qaraabo yihiin ama ilmaadeer wasiir ku-xigeenka qurba joogtana ahaan jiray magaalada Stockholm ayuu joogay markuu shirkii guddiga fulinta ee jabhadda ONLF uu ka dhacay magaalada Stockholm ee waddanka Sweden miyuu la kulmay ama yuu la kulmay cadeyntii ma hayo inuu la kulmay iyo dad kamid inuu la kulmay laakiin asagoo wakiilka Cabdiilay waa asaguna Stockholm joogay cadeynteedina waan hayaa oo dadkii uu ku degtay ama uu la joogo dhan baa soo sheegay hadda warqadii markii la soo qaaday waxaa lagu ballamay Kenya 10ka bishan Kenya waa la wada yimid cabdi waa nin shaki badan Sheekh Ibrahim iyo dad kale oo dhexaadinaya waxay ku qasbeen inuu shirka tagin asagu ee rag kale uu u dirsado oo wakiiladiisa ah laakiin cabdi wuxuu ka baqay in asaga meesha loogu shiro oo laga wada hadlo wuxuuna generaaladii Tigreega ahaa iyo asagu waxay go'aamiyeen in uu meesha ka qayb galo bal uu shir guddoon noqdo oo guddiga Itoobiya uu asagu go'aamiyo sida aad sawirada ka arkayseen kursiga oo u dhaxeeya ayuu fadhiyay labada dhinac asaga dhaxbartamaha ku jiray warqadahan asaga hay macnaha asaga ayaa shir guddoonka oo daadihinaya wada hadalka arinta ayada pressure badan baa lagu saaray waa soo qoray dhowr maalmood ka hor cabdi in la baryayo oo leeyahay tagi shirka asaga uu diiday cabdi kaliya muuse tagin inta badan wasiiradiisii iyo maamulkiisii hore u sii ka haystay oo uu kamid yahay Khadar Dheere Suldaan Khayre rag badan kuusow Bashir Cabdullaahi Idris oo dhinac kaga jira rag inta badan wasiiradiisii iyo maamulkiisii ayuu sii ka haystay asagoo shaki kala ka qaba in la daba mariyeeyo markuu jigjiga ka tago dad badan baa waxay isweydiiyaan muxuu u wada guuraa markuu meel aadayo cabdi meel markuu aadayo muxuu wasiirada iyo maamulka dhan u sii ka haystaa wuxuu ka baqayaa cabdi inta uu maqan yahay in afgambi lagu sameeyo oo qolyaha kale intii dhabarka laga taabto uu maaragtay intii dhabarka laga taabto ay bedelaan that's why uu Nairobi iyo meeshu tagay uu la tago waa nin baanarooye qaba uu soo asbaahaya okay wada hadalkii saasoo ku furmay maxaa lagu heshiiyay shirkii Dubai oo qoran waxaa lagu heshiiyay in maamulka qayb laga siiyo jabhadda ONLF inay urur siyaasi noqdaan oo doorashada 2020 ay ka qayb galayaan in ciidanka federaalka ciidan loogu daro in wasiirada federaalka laba loogu daro waa inta heshiisku haddana is aragana waa intii un baa miiska saaran laakiin maanta jabhaddu waxay codsatay in loo kaadiyo oo waqti la siiyo ay shirweyne ku qabsato shacabkeedana ay kaga dhaadhiciso iyo codsatay heshiisku uu qoran yahay waana la gaaray laakiin jabhaddu waxay codsatay waqti in la siiyo Tigreega generaaladii Tigreega cabdi la socday iyo cabdi waxay yiraahdeen 3 bilood ku soo gabagabeeyay 3 months laakiin jabhaddu way ka cudur daaratay waxay yiraahdeen waqti anaga aan loo xadidin waqtiga aan hawshanada ku soo dhameysano ayaanu imaanaynaa ama shirweynaha anaga aan qabsano oo nu dadkana ka soo dhaadhicino shirweynaha lagu ansixiyo wuu idin soo gaari doonaa haddaba intaas waa warbixinta iyo sida ay wax u dhaceen waxaana fiican sida ay wax u dhaceen mar walba in la isu sheego kama soo horjeedo laakiin inta markaynu isla garanay waxaan jecelahay su'aalo in maaragtay la isweydiiyo 2005 ayada oosan waxaan wadada aysan dhiman ma aha inaan ka soo horjeedo laakiin jabhadda madaxdeeda critical oo madax aan isbedelin madaxdii hore una maadaama ay khaladaad hore oo political ay sameeyeen waxaan qabaa shacabkii dhaawaca iyo dhibaatada iyo qaxo uu ka soo gaaray dagaalkii wadeen inay xaq u leeyihiin su'aalo inay weydiiyaan especially madaxda hadda hogaamisa maxaa yeelay qofka siyaasiga ama wax hogaaminaya marka uu mistake ama political mistake uu sameeyo waa inuu qirtaa normally una iscasilaa taan iscasilaad ma jirto laakiin si loogu waana qaato khaladaadkii dhacay in la isxasuusiyo ayaan qabaa oo la isweydiiyo kama filayo Ilays TV iyo Afmeer TV inay weydiiyaan media kale oo weydiinaysa ama xogaal aan ma qabo sidaa darteed waxaan jecelahay inaan weydiiyo anoo halkan u marinahaya
madaxda hadda oo Cabdiraxmaan Maadey iyo generaalka iyo inta hadda joogto oo markaa joogtay 2005 Mille Zanaawi oo joogay waqti uu ugu xoog badnaa culays siyaasadeedna uu haystay oo doorashadii Itoobiya ahayd ayaa wuxuu soo diray wafdi odayaal beesha ah odayaasha waxaa hogaaminayay ugaas Cabdi Axmed Xaashi oo Cabdi Dacay loo yaqaan Allah yarxamu Allah u naxariisto garaad Xasan garaad Axmed garaad Maqtal Allah u naxariisto oo Cabdiile uu gacantiisa ku dilay jaloogaadeen Suldaan Cabdiraxmaan Duulane iyo rag kale oo badan Suldaan Maxamuud Duulane iyo rag kale oo badan bariga ayada Mille Zanaawi wuxuu diyaar u ahaa inuu jabhadda hor fareysto uu la hadlo odayaashan uu u soo diray odayaal madax dhaqameed oo deegaankii u dhalatay xogtiisana haysa ay ahaayeen jabhaddu waxay diiday inay la kulanto inay wada hadal la sameeyso ay la furto marka haddii aan weydiiyo waqtiga ayada inta maanta ina gaadhay inama gaarin kumanaanka dhintay ma aysan dhimanin boqolaalka kun ee Cabdiile uu soo qixiyay lama soo qixinin dhaqanka iyo diintii iyo akhlaaqdii lagu ciyaaray ee Cabdi uu ku ciyaaray laguma ciyaarin maalinka hadday diideen inay odayaasha ergada Mille Zanaawi ay ka aqbalaan maanta ergada Cabdiile ee Sheekh Ibraahim uu ka ergeynayo say ku aqbaleen ama wada hadal inay la galaan oo hor fariistaan waan dareemi karaa oo tabartii hore ma jirto sax waqtigii ma waa sax laakiin marka ayada maadaama aad garan weydo inaysan tabartaadu sii soconayn iyo xooga marka aad leedahay miyaysan ahayn calaamadaha ama waxa la idinku doortay leadership inaad noqotaan inaad waxa soo socda aad saadaalin kartaan leaderku ma aha ninka dadka daba orda ee ka sacabtuma ee daba sacabka tuma dadku meesha ay u socdaan waa ninka go'aamo adag oo kharaar qaata waqtiga loogu xoog badan yahay ka fikira dhibka iyo dhibaatada imaan doonta taa waxaan jeclaan lahaa in lagu la xisaabtamo oo la weydiiyo madaxda jabhadda waxa kale oo jeclaan lahaa oo in badan ku soo celceliyeen in badan ay ku soo celceliyeen Cabdiile maxaa loogu mashquulayaa waxba nagalama maqno waxba Cabdiile nagalama maqno Cabdiile inama haysto inama gumaysto in badan ayay ku soo celceliyeen media iyo madaxda jabhaddu haddii ay runtahay saad sheegayseen maxaad u hor fareysateen oo la hadasheen ilaa shalay waxaadna lahaydeen Cabdiile waxba nagama haysto inama gumaysto waxba inama yeelin ragga qaarkood waxba inama yeelin Cabdiile maadaama uusan waxba ina yeelin uusan asagu ina gumaysanin maxaad u hor fareysateen oo exactly aad miiska iskaga soo horjeedeen Cabdiraxmaan Maadey iyo Cabdiile not Gabre iyo Cabdiile iyo Cabdiraxmaan Maadey iskama soo horjeedin oo nimankeena lahaayeen waxba inaga haystaan laakiin Cabdiraxmaan Maadey iyo waxa is hor fadhiyay Cabdiile oo iska soo horjeeday diirane iyo waxa u dhaxeeyay hal qubno qorane sawirka markii la galay iyo Cabdiile hal qof ayaa u dhaxeeyay marka haddii sidii aadna lahaydeen Cabdiile uusan waxba inaga haysanin uunana ma taqaanaaye uusan waxba ina yeelin maxaad u hor fareysateen haddiiba aad hor fareysateen ma qiranaysaan khalad inay ahayd hadalkii aad nagu lahaydeen iyo dacaayad ee markaanu Cabdiile ka hadlayna aad ogeydeen miyaysan taasu marin habaabin cad ahayn oo dadka aad marin habaabinaysaan waxaa la run iyo ilkaba waa la cadeeyaa waan ogahay wax walba waan ogahay inay dadku tabar yar yihiin la daalay jabhadii ay daciiftay sidii hore aysan ahayn waxaas oo dhawaan ogahay laakiin waxaa fiican dadkaaga marka aad la hadlaysid inaad sidaa ugu sheegtid inaad ahay tabar ma hayno awood ma hayno nabad baynu iska qaadanaynaa gudahaynu galaynaa laakiin inaad been cad sheegtid ood miidiyahaaga ka sheegtid oo tiraahdo Cabdiile ma imaanayo shirka mar aad daadis arag Dubay ma jiro waa been marba wax aad akhriyeed waxaan u arkaa marin habaabin iyo aqliga iyo garaadka taageerayaashaada iyo shacabkaba in lagu ciyaarayo garaadka ama garashada shacabka iyo taageerayaasha inaad ku ciyaaraysid wax walba hadduu sidoo Ilaahay kugu ogyahay hadaad daacad ka tahay halganka iyo hawsha aad sheegaysid waxa ila qurux badan in aad dadka runta mar walba u sheegtid ummad ma xoroobi karto ayadoo runta isu sheegin
meesha ay joogto kama dhaqaaqi karto hadday quraafaad iyo been ay isku madadaaliso in badan baan isku madadaalinaynay nin kamida madaxda jabhadda ayaa 2007 khudbad ka jeediyay magaalada Oslo khudbadaas dad badan baa dhageystay waxa kamid ahaa wuxuu yiri haddaad $2,000 bixisaan 2 sano ayaynu ku xoroobeynaa markuu hadalkii dhameeyay soo baxay baan ku yiri warniyahow inaan 2 sano lagu xoroobeynaa ama wadanka aydan xoog ku qabsanayn waad ogtahay dadka maxaad waqtiga ugu qabanaysaa soo hadhow been lagu qabanaya ma aha wuxuu yiri weyba iloobayaan dadka waa lagu kiciyaabi waa lagu abaabulaa 2 sano xusuusanba ma hayaan dadkoo dhan ma aha inta badan iloobaan baa laga yaabaa laakiin qaar badan ayaa xasuusan oo ogaanaya waxaa fiican dadkaaga marka aad wax u sheegaysid waxa realistiga ah iyo awoodaadu inta ay tahay iyo tabartaadu inaad marwalba u sheegtid ummadda wacyigeeda wuxuu kor noqonayaa ama ay ayaku guul ay gaari karaan oo xaqooda iyo xuquuqdooda ay heli karaan marka ay runta isu sheegaan marka ay isu sheegaan meesha ay taagan yihiin iyo awoodooda laakiin haddii aynu isku qufno aynu isku akhrino cirkiya dhulkaynu kala haynaa adduunyadii oo dhan inaga ugu sarreeyna tolla ayay yaa ree hebelay tolla ayay maartaqana reerkayga awoodda ugu badan leh weligaa guul ma gaaraysid underdog baad ahaanaysaa waxaad ahaanaysaa dad rafaadsan oo been quutayaal ah waxa aan rabo waxay tahay siyaasiyiinta beesha u dhashay beeshaydaan leeyahay weliba waa idinku celinayaa beeshayda u dhashay waxaan jecelahay inay runta isu sheegaan inay shacabkooda runta u sheegaan inaysan been ku madadaalin it doesn't matter meel walba uu joogo beentu siyaasigu wuu sheegaa sometimes laakiin waxa principalka ah ama muhiimadda ama danta guud been lagama sheego waxaasoo kale dadkaagii baad lu goynaysaa ummadaadii baad lu goynaysaa ma jihayn kartid waxaad ka soo qaadaysaa gaas dhagool waxaa sahlanaanaysa marka aad gaas dhagool ka dhigtid sidii la rabo in laga yeelo sida hadda dhacaysaba marka intaasan kusoo gabagabeynayaa oo jecelahay barnaamijkan aan kaga hadlay wixii Nairobi ka socday waxaan iloobay hal point oo ahaa Cabdi Ilay muxuu ka leeyahay wada hadallada iyo sawirradii maanta Cabdi Ilay sawirradii maanta uu jabhadda la soo galay iyo Nairobi dan yar buu ka leeyahay asagu soke wax fog ma sii fiiriyo kullay in badan oo idin kamida aqoon badan uma lihidin ameedaan u fiirsan ficilada Cabdi Ilay ma saadaalin kartaan danta uu ka leeyahay waxay tahay dadkii kacsanaa ama dulmidiid ama ashkhaastii kale aanu kamid ahaa inuu isku dayo inuu niyad jabiyo inuu u sawiro in jabhadiiba ay isla sawirayso oo rabto oo dhaxbartamaha u taagan yahay saa darteed anigu Cabdirashiid ahaan iyo inta ila midka aan waxba ka qaadi karin wuxuu u tusayaa in tulkii ay jecel yihiin ama Kenya ha joogaan ama Soomaaliya ha joogaan ama jabhada ahaadaan taas ayada wuxuu uga dan leeyahay inuu beeshi baryahan uu beegsiga ku hayay jidwa inuu ku guulguulo oo u tuso ogaadeen baa midoobay waxba nagama qaadi kartaan annaga ogaadeena waa ujeedada uu ka leeyahay maanta oo ugu dambeysay dad jidwa ku xirxiray qaar buu qixiyay waa nasiib darro ayada oo uu dhinac kala qixitaan ka wada inuu qolo kale la yiraahdo wada hadal baan la galayaa taas waxay ku tusinaysaa inuusan daacad ka ahayn wada hadalka inuusan daacad ka ahayn dib u heshiisiin maalin boqolo ayuu rabaa inuu ma aragtay uu ku awrkacsado sidii haday aan idin sheegayba marra uu yiraahdo Soomaali baa cadow inagu ah marra jidwaaq baa cadow inagu ah marra uu yiraahdo mataqaanaa reesaaq baa cadow inagu ah hadan reebelna waa jariimooyinka ama taatikooyinka uu isticmaalo uu ku caanamaalay war ha ku kadsoomina ninkan aqoon badan baa idinku laaban ogaadeen iyo wallahi buu jidwaaq kala jeclayn reerkiisa ama caruurtiisa hadii la keen hadda oo kursiga sii joogaysa intuu geeyo uu miiska saaraya wala ku kadsoomina wardan ogaadeen ma wado dan Ree Cabdilla ma wado dan Ali Yusuf ma wado dan cidna ma wado dantiisa ayuu wataa dantiisa oo kaliya ayuu wataa wuxuu arkaa kursiga inuu ku fadhiyo waa muhiim in laga digtoonaado sawirradaasu sawir xun bay bixinayaan laakiin waxa muhiim ah dadka wax garadka inay ka hadlaan beeshaasu heshiis kuma taageero Cabdi Ilay heshiis lama Cabdi Ilay kuwa Kenya jooga maslaxa iyo nabad bay rabaan kuwa Jubbaland jooga maslaxa iyo nabad dadkooda inay ku noolaadaan bay rabaan sida uu Cabdi Ilay u sawirayo ama uu dhigayo xaaladdu ma aha dadka kale waxa daacad ka ah ama siyaasiyiinta beesha Kenya in nabad ay ku noolaadaan walaalahooda Ethiopia ku nool ayna la heshiiyaan
kuwa Kenya saasoo kale ayaa daacad ka ah laakiin Cabdiile khiyaanada iyo beenta uu wada run ma aha reerna duulimaad laguma aha reer Soomaaliyeed duulimaad laguma aha colaada uu abuurayo uu leeyahay Soomaali ba halka ayna dhigtay Soomaali aynu u midoono waa beentii Soomaali loo midoobahay ama col inala ma jirto Soomaalidu waa dadaan isku dhiig isku dhaqan isku dadnahay qabaa'il badan baa deegaanka dega waa dad walaala especially waqtigan xasaasiga ah waxaynu u baahanahay Soomaalinimo inaan wax ku raadino Soomaali inaynu mideyno inay naga noqon sidii 91kii qabiil walba inuu urur samaysto iyo koox inaan qabiil u kala qaybsano waa khiyaano waa dhagar hal laga digtoonaado waxa qabaa'il yar oo midba gooni iyo danteeda ay rabto isbedelka Ethiopia laga filayo kagama faa'iideysan karno inagoo Soomaaliya inagoo isku duuban inagoo xaqeena raadinayna isu tanaasuleyna isuna garaabayna ayaynu xaqeena ku raadsan karnaa sidaas oo kaliya ayaynu xuquuqdeena iyo xaqeena ku heli karnaa beeshaydu kaliya xaqeeda ma heli karto jilibkaygu ma heli karaan jilibkaaguna sidaas oo kale lagama yaabano midnimo iyo Soomaalinimo oo inagoo isku duuban ayaynu xaqeena iyo xuquuqdeena ku heli karnaa taa waa in la aaminaa taa waa in dadka loo sheegaa ninkan marba dhinac inoo jihaynaya waa in loo midoobaa waa in la iska qabtaa aad iyo aad ayaan idinka mahad celinayaa waqtigiina qaaliga iga raalaada waan idinku dheeraaday baan u maleynayaa inaan intaas oo dhan hadlo qorshaha iguma jirin laakiin insha Allah ta'ala mar walba wixii xaqiiqa ee jira uma joojinayo cidna hebel baa ku caynaya iyo hebel baa ku caynaya wallahi baan u joojinayn haddaan cid u joojinayo Cabdiile oo aabahay dhuunta ku dhagan baan u joojin lahaa ayeeday dilay baan u joojin lahaa reerkayga oo dhan wada xirxiray baan u joojin lahaa uma aan joojinayo wiil kaadira oo carbisan oo caraatanka jaamacada uga soo baxay iyo personal attack waad isdaalinaysaan horeyna uguma joojinin haddana uma joojinayo dadkiina kale aamusan ee ka cabsanaya ama Cabdiile ama ka cabsanaya caraatanka kaadirka waxaan oran lahaa bilaa calaykum cabsida iska saara haddii aydan hadlin haddii aydan wanaaga u sheegin haddii aydan fikirkiina soo bandhigin xaalku isbedeli maayo especially dadka wax garadka iyo aqoon-yahanka inaynu isku fikir noqono muhiim ma aha inaynu isku si wax u aragno muhiim ma aha laakiin waxa muhiim ah fikirkaaga inaad xor u tahay oo cabiri kartid waqtiga aad rabtid iyo goorta aad rabtid inaan lagaaga yeeri karin jigjigo ama aan lagaaga yeerin karin wiilal yar oo Facebook wacaya ama meel kale platform baan sameynay website la sameeyay waxa la sameeyay page-ka rajo TV baan ku rajo weynahay biidnillaahi alkariim hadduu ilaahay noo suurta geliyo inaan furo fikirkaaga iyo codkaaga si geesinimo leh u soo gudbi ummadaada u istaag 10 qof oo organize garaysan ama isku duuban ayaa wax weyn bedeli karta ama ka xoog badan boqolaal kun oo organize garaysnayn waana sida aynu nahay ma organize garaysanin iskuma dubarinin isku meel waxba kama aragno marka dadka wax garadka oo rag badan oo odayaal iyo akhyaar ah oo hadda halkan ka arko inay daawanayaan halkan aan ka arko aqoon-yahana waxaan dhiilaa fikirkiina waa loo baahan yahay cidna ha ka cabsanina dadkiina fikirkiina ugu gargaara aad iyo aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh